الشيخ حاسكيغا ayaa maalin gadaal uga tagay markaas kadib uur bay yeelatay marka ilmahaasi muxuu noqonayaa tan kale hadii ay iga furan tahay see u socoshan karaa bismillaahir rahmaanir rahiim Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu ku yiri markuu ka hadlayay dumarka iyo ragga isqaba muaamalada sariirta ku dhaxmarta wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa ta'ala fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah dumarku markay dahaara qaataan oo ka qabaystaan dhiigii caadada Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala u taga laakiin meeshii Ilaahay idin amray من حيث أمركم الله ماشي إلهي دين أمري أو ماشي محمو هاي حبينك الله قلت لك علي هل كاس ربي تبارك وتعالى كو أمري إن حاجة اللي قلته بمعنى وحي كجد السنة يمال كلا لما أقولوها ساس تلاتد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أوقات كيس والنبي قوار ربي صلوات ربي وسلام عليه دمر كم هو هاي محاشدة يمشي الصحراء إن الله قال الموضوع وادي النبي صلى الله عليه وسلم بل لعنت با كسو أرورتي waxay kamid tahay dambiyada waaweyn oo Ilaahay laga galo tabaaraka wa taala mid kamid ah ha ahaato waa dambi weyn oo toobad u baahan marka hore in la iska ilaaliyo u baahan haweentu in ninkeeda ka ogolaato ma ah inay ku diido oo hadii muxuu ahay damcaasi gala ayna ka ogolaanin laakiin haday dhacdo oo shaydaan ka shaqeeyo markaasi haweentii ma furmayso muxuu ahay waxyaalaha furitaanku ku yimaada kamid ma furitaanku wuxuu ku yimaada ama ninku inuu reer ka furo ama maxkamadii ka furto ama dalqadaha wax ku badasho furitaanadu saasay ku yimaadaan laakiin ficil nooc ama uu ridoobo diinta ka baxo laakiin muxuu ahay haweentii qaab khaldan ugu tagay furitaanku ma yimaado ilmaha uur galayna waa ilmo sharciya xarigiina wali waa jira waa isqabaan inuu soo ceshadiyo inuu guursadana dib uma baahna maxay yeelay kii hore jira laakiin khalad buu galay oo dambi buu galay toobad u baahan Ilaahay u soo noqdo arrintaana wixii hadda ka dambeeya iska ilaaliyo wallahu a'lam